فريق ساعتا SSC خاتمو مدحيدا دقنكا علمada hablaha dhalinyarada kacanka buluuga barakaysan gudiga barakaysan baarlamaanka barakaysan fariin ku socota salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa qaadunka noolaha insha Allah maanta waa jimcadii ma u bixinaa magacaan u bixino midaysay Soomaali jimcadii qurmoonkii ka dhamaaday insha Allah Soomaali qabyaalada qurmoonka qabiilku wato ka dhamaatay waajibadii kaliya in adduunka intaan noola taageeray khaatumo xaq ku dagaalamaysay intii fariin shacabka Soomaaliyeed doqon iyo fariid u direen Muuse wax ku qaadan waayay haynoo dambeeyo Muuse iyo waxa la shaqeeya hadda waxaan ku ekaananaa khaatumo iyo taageerayaashooda reer khaatumo ustaad u dhantihiin shacab iyo maamul waxaan idinka baahanahay haddaanu shacabka Soomaaliyeed nahay xaq u dirirka kolka u horeysa annaga naftanada u hiilinay Soomaalinimadan u hiilinay idinka maana idin hiilinay laakiin marka la sii daadago idinkaan idin hiilinay waxaan idinku hiilinay hal shay laba shay Soomaalinimo inaad bridge-kii Soomaali isku hayay tihiin hoggaanka iyo qofka maxaa u dhaxeeya awrka iyo maxaan ku raaq qofka waxa u dhaxeeya hoggaankii Soomaali isku tolayay qasab iyo raganimo iyo run baatihiin okay Soomaalinimadaas aad ku dhaganaydeen baan isku taageereynay okay maanta gobonimada aad u soo hoyseen Soomaali waxaan ka cabsan inaad hal mar gambidaan dadku waa idin fiirsan gobonimadu waa idin fiirsan raganimadu waa idin fiirsan kan ma goyn karo Muuse Biixi dirkiisa waa xumaado waa kan khaatuma waxaan leeyahay wiilasha aad qabateen gooja cadde reer dhulbaantow reer hartiyow kuwaasa iga kiin xiga marka ay timaado Soomaalinimo markay qabiil timaado adaa iga xiga oo doqonka ii door u garan waayo Soomaalinimada adaa iga xiga laakiin markaad Soomaalinimo ku guuleysatay oo Soomaalinimo aan ku taageerayay oo Soomaalinimo aan u dhiman aniga iyo qof kasto idin lamida guushii maanta aad haysaan waxaan ka cabsan inaad gambidaan si sahla inta 30 sano aad u soo halgamayseen waxaan ka cabsan dhowr saacadood inaad gambidaan oo qaataan guul darro aakhiri adduunkaba walaalayaal ka jooga doqonku waa inagu badan yahay haddaynu nahay daarood doqonku waa inagu badan yahay haddaynu nahay kablalax doqonku waa inagu badan yahay haddaynu nahay harti doqonku waa inagu badan yahay haddaynu nahay dhulbahantay caraysan okay haddaan si kale u dhaho nin aabihii la dilay walaalkii la dilay habriirtii la dilay dadii la dilay waa caraysan yahay ciidanka ha laga saaro nin kastoo caraysan nin kastoo inuu aargoosto doonaya dhalinyarada aad qabateen dhulbahantow hartiyow waa seedi waa beer hayga oohinina ha ka oohinina Soomaali waa seedigay waa mid ay dhashay habaryartay waa mid ay dhashay ededay waa mid ay dhashay ayeeday waa mid aan nahay oriyo walaal waa mid isir aanu saas ku nahay reerkan reer jigjiga iyo isaaq saas isku yihiin waa reerka iskugu xiga tolkayo walaalahayo reer daaroodo reer hartiyo reer dhulbahantow hal qof yaan saa loo xaganin hal qof yaan indho xun lagu fiirinin hal qof yaan la biliqaysan okay qaniimo wixii bariisa yaallay meesha cunayaan qaata laakiin qofku wuxuu leeyahay shaygiisa iyo qalabkiisa iyo alaabtiisa iyo mobilkiisa yaan la taaban nin kasta oo halkaa ku gaajooday oo Muuse Biixi ku duleeyay adeerow u maydha oo u qabeeya oo dhar cusub u geliya oo barafun ku daadiya oo waa walaalkano waa walaalkiine Muuse lugooyay doqonima lugoysay ninkii oo qurux badan seedigay oo qurux badan
wiilkii aan abtigu ahaa qurux badan abtigayo qurux badan in abtigayo qurux badan han arko haddii aan arko seedigay intaa adiin sheegay oo ooyaya sharaftii 30 sano aad u halgamayseen waad gembideen dhulbaanto waad gembideen hartiyo ha noqonina gun raysay ha noqonina gobonnimadii aad u samirteen ee Soomaalnimo u samirteen dhamaystira hal qof oo pool lagu yiri dhalinyarada wiilasha la qabtay la gooyay ee qasbanaa yaan arkin okay dekadii garacad oo maanta difaacayay dekada garacad waxa iga xigtay dekada birbira markay Soomaalinimo jirto markay interest jiro juqraafi ahaan bay iga xigtaa dhalashaan bay iga xigtaa Soomaalinimada ka weyn daaroodnimada jiiraanka ka weyn ceeshow milixda ka weyn milixdan kala qadana ka weyn wiilasha gooja cad lagu qabtay iyaga oo qurux badan oo u subagteen oo u wanqasheen oo ari u qasheen oo gaajo ku dilay geel u qasheen oo qurux badan horta wiilasha maxaabiista haba siinina qolo kasta hasinina idigoo qurxiyay iyagoo sharfan oo shaaximan oo laga yaabo gabdhaha inaan ku daro waa wiilasheeniye ilma reeyal halkaas sharaf inoogu horeysa Soomaali jacayl inoogu horeeya halkaas doqon iyo door u dhamaanaya halkaas asanam u dhamaanaysa halkaas xiiqsan u dhamaanaysa inta sameeya inta ha iloobina waad aaminsantihiin waan garan laakiin xabad careysan oo doqona ku dhex jirta oo ciilan ama dee duruufta ciishay kuwa ciidan ka saara sharafta ayaan u soo galay inaa ii tilmaamo reetolkayow jimcadan han u magac bixino muuse biixi gadaal baan insha Allah haddii ilaahay raali ka noqdo aan soo weydiin doonaa maxaad haysaa muusow maxaad haysaa haddaa si kale u dhigo muuse waxaaban soo jeedin in la siiyo darajo waynoo hiiliyey Soomaalinimada maalintii muuse biixi meesha loo dhibay askari xanaaqsan oo xiiqsan oo bishida qaniinsan maalintii ay asana u dhiibtay waa maalintii Soomaali si indirect ay u hiilisay waxa laga yaabaa inay soo jeediyo muuse uu nacaawiye waxba yaana nicba haynu dalacsiino okay waxba yaana maxkamad saari muuse Soomaali miday muuse daarood miday muuse dhulbaantu miday muuse harti miday muuse gooja cad isaga inoo qabtay marka intaas iyo wax kale ayaan soo gudbin doonaa garaadada waan salaamaya gudiga sharafta waan salaamaya kacaanka barakaysan waan salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh